بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد magacaygu waa raaxa cali siciid warsame waxaan ku sugnahay degmada shaxda waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya farmaajo inaan u tiriyo tix yar oo duca ah waxaan ku bilaabay bisiinkii ilaahigay waxaan ku bilaabay bisiinkii ilaahigay بدنيغا iyo aan ka jaray balashi wadnaha بدنيغا iyo aan ka jaray balashi wadnaha oo aan ka soo baaraya hay'adka barakada leh oo aan ka soo baaraya hay'adka barakada leh buruujiyo baqara iyo suuradaha birta buruujiyo baqara iyo suuradaha birta baan farmaajo ku bilaabay magacaagu inuu bilmaa farmaajo noolo wabihid kana nolol kuwar farmaajo noolo wabihid kana nabad kuwar cadawga kugu taahaya turya kulama helo cadawga kugu taahaya turya kulama helo rabbiyow cadawgaaga ku cuuryaami meel cidla allow cadawgaaga ku cuuryaami meel cidla oo waa ku soo dooranaya kina deeqay noqo عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto oo madax ka yahay mudane farmaajo madaxweynaha iyaga federaalka Soomaaliya waxaan u soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa iyo ra'iisul wasaaraha khayre aad baan labadaba u soo dhaweynaynaa han noolaadeen waa taageeraynaa anagu Soomaali baan nahay ciddi Soomaaliya oo taageeraysa dawladda baan anagu raacsanahay annagoo ku hadlayna odayaasha dhaqanka ee degmada shaxda oo ka tirsan gobolka Karkaar waxaanu taageeraynaa dawladda federaalka waanu soo dhaweynaynaa ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Xafsa Cabdi Shukuur Maxamed waxaan halkaan iskugu soo baxnay hadaan nahay dhalinyarta ama aqoon-yahanada degmada shaxda inaan soo dhaweyno maxay tooy taageerno maxay tooy khudbadii uu ka jeediyay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya taasoo ahayd khudbad qiiro gelisay iyo doorashada qof iyo cod aan taageersanahay inaan xorriyadeeda anagu hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed inaan anagu wax dooranno halkii ay maxay tooy awr xildhibaanadu wax dooran jireen inaan anagu aan dooranno yani madaxweynaha noo fuulaya xilka madaxweynenimo waxaan rajaynaynaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo shucuurtii iyo niyaddii maxay tooy mar horena jabtay dib noogu soo celiyo inuu mar labaad noo soo noqdo waan ku taageersanahay madaxweyne Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ku hadlayo magacayga magaca ummadda matasha degmada shaxda magaca ismada magaca beesha magaca waxgaradka magaca siyaasadda waxaan ku dhawaaqaynaa oo diyaar u nahay degmada waxay raacday federaal maaha waxa shaki ku jira maaha wax la qarin karo maaha wax la diidi karo maaha waa waajib muqaddis ah istareeya Soomaaliya istareeya Soomaaliya ditonasia khora matalos sistema tarashaga rebelliya awaad baan u leenahay masiirka yaga iyo mustaqbalka yaga awaad baan codka yaga laga barmayno doorashada qof iyo cod baan rabnaa nina cadow kuma nihin
maamulka Puntland maamulkiisa degmooyinka gobolada xumaan u geysan mayno deegaan baanu haddana waa taageersanahay awalna waa taageersanayn maantaanu masiirka iyaga caddaynay dadweyne may maqlaysaan nabad iyo nolol nabad iyo nolol cabdillaahi nuur axmed waxaan joogaa degmada shaxda gaar ahaan ka tirsan gobolka karkaar waxaan ku hadlayaa magaca afka dhallinyarada ee ku nool degmada shaxda waxaan halkaa ka muujinaynaa dareenkayaga ku aadan inaannu ku taageerno codkayaga dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaannu ka rajaynaynaa sida aannu ugu soo bambaxnay aannu ugu muujisnay dareenkayaga inay iyaguna noogu muujiyaan dareen la mid ah oo waxtar leh oo laga arki karo shaashadaha caalamka